bismillahi raxmaani raxiim. Guud ahaan ummadda reer Puntland shacab iyo dowladba waxaan rabaa inaan u diro hambaliyada munaasabadda 1 Agoosto oo maanta ku beegan 24 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay dhalatay dowladda Puntland. Maanta kale waxay ahayd maalin muhiim ah, mid ka mid ah maalmaha qaranka ugu muhiimsan, mid ka mid ah maalmaha maaragtay xusitaankooda jiritaankooda ummadda qulubtooda ku wan yahay. Waxaan rabaa inaan hambaliyo iyo bogaadin u diro shacabka iyo dowladda Puntland meel kasta ay joogaan. Intaa kadib sanadkan waxay ku soo aadantay munaasabadda 1 Agoosto iyadoo dalkeena ay ka jiraan abaaro ba'an, iyadoo in ka badan 2 milyan oo dadka reer Puntland ay si toos ah u saameysay abaarta. Waqtiga runtii waa xilli adag, waa xilli ummadda reer Puntland meel kasta ay joogto ay ku jirto maaragtay xaalad aad iyo aad ugu dhow dhimasho oo macluul gaartay. waxaan rabaa hambaliyada ka sokow inaan uga faa'iidaysto fursaddan tan anoo ka mid ah muwaadiniinta reer Puntland inaan munaasabadihii 1 Agoosto aynu u wareejinay inaynu dadkeena u gurmano. Sidoo kale inay xalfad kooban jirta caawa iyadana waxaan ka rajaynayaa inay noqoto madal qaran loogu sameeyo dadka abaaruhu saameeyeen ee reer Puntland. Waan uga mahadcelinayaa dowladda sidaa u soo koobtay iyadoo dadkeeda u danaysay. maanta kale waxay maalin aad loo xusi jiray, aad loo weynayn jiray, taariikh laga sheekeyn jiray wixii la soo maray iyo halkii laga yimi. nabadda micnaha ay noo leedahay, dowladnimada micnaha ay leedahay. maanta kale maalin waxay ahayd dadka loo sheegi jiray, gaar ahaan generationka ama jiilka aan xilligaa joogin la kowsan, si looga reebo dhaxal looga reebo kuwii dhidibada u taagay oo qaybtood ay nool yihiin, qayb badan oo ka midana ay dhimatay. waxaan u rajaynayaa intii dhimatay in eebba u naxariisto. dhaxal fiican baa nooga tagteen, waa sii hayn doonaa insha allah biidnillahi kariim. inta noola waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iidaysano taariikhda iyo maaragtay dowladnimada ay noo asaaseen. guud ahaan ummadda reer Puntland waxaan leeyahay hambaliyo, sanadkiisa kale khayr iyo barwaaqo, nabad, barwaaqo iyo sanadkan oo sanadkaa ka qurux badan ilaahayna ku gaarsiiyo eebbe. isku duubni wada jir ayaa lagu gaaraa dowladnimada iyo maaragtay horumarka. aan isku duubnaano dal iyo dibad meel kasta aan joogno. waxaan leenahay guddiga abaaraha fariintaan u dirayo waxay tahay inay madasha ay ka jirto caawa munaasabadda kooban ay fariintooda ka aadan ay kaga jeediyaan. sidoo kalena waxaan soo jeedin lahaa ama ku rajo weynahay inay madal qaarana noqoto oo lagu sameeyo dadka reer Puntland abaaruhu saameeyay. sidoo kale guddiga waxaan u jeedinayaa inay weli roolkoodu ma muuqdo iyo saameyntiisu. dadka reer Puntland 2 milyan ayaa abaaruhu si toos u saameeyeen. inay dadka wixii haysta wax ka qaadaan, annagu waa garab taaganahay ka dhalinyaro ahaan, ka maaragtay intaba reer Puntland ahaan intaba waa garab taaganahay. waxaan rajaynayaa in dadka loo gurmado maanta reer Puntland oo maalin weyn ah oo runtii fariimo xanuun badan ay ka soo yeerayaan. waxaana rajaynayaa oo si gaar aan ugu bogaadinayaa cid kastoo mushaar qaadata bisha tan inay u wareejiso gurmadka dadka abaaraha saameeya.